in aad maanse ka tirisay hooyada Soomaaliyeed oo aad aynu wada jecelnahay oo hooyooyinka Soomaaliyeed maanta ay yihiin kuwa waqtiga badan geliyay maanta juhdiga in waqtiga la soo gaaro runtii macni markii loo eego xaaladii la soo maray bal hooyo maxaad ka tirisay hooyo wax la qiyaasi karo oo khaliif wax ku soo afar eray oo khaliif isku beegay qiimaha hooyo leedahay ma turjumi karaan hal abuurro iyo baano waaweyn oo Soomaaliyeed baa ku muujiyay dareenka hooyada ay leedahay iyo kaalinta bulshada uga jirto hooyadu waa lama horaan baan garanaynaa hooyo laanta baan garanaynaa Carays Ciise iyo Hadraawi ragii la midka ahaa laakiin haddana jacaylka hooyadu ma wax laga qaangaaro oo laga maartay ama guura ama gabooba waxaan ugu lamaan oo sida harkii inoo daba socda lagama weynaado marka maansada yar oo hooyo dul badnaantu waxa weeyaan hooyadu wax badan oo qofka bini aadamka ah kale aan u dul qaadan karin ay u dul qaadataa runtii dad badan baan maansada niga codsaynaan mar labaad u soo duubo qaybta hore waxaan kaga hadlayaa wax qabadka hooyada Soomaaliyeed qaybta labaadna waxa ay maaragtay ka hadlaysaa sida aan hooyadii anigu u tabay ilaahay jannadiisa naxariistiisa ka waraabiye waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala hooyooyinka Soomaaliyeed ha u naxariisto awlaadda ifka kaga tageen ilaahay ka dhigo awlaad saalixiin oo u duceeyay ilaahayna jannada ku kulansiiyo inta ay hooyooyinkood nool yihiin hooyooyinkood maanta haystana waxaan ka baryayaa ka codsanaya ku dhiirigelinaya waxa weeye inay waqti hooyada siiyaan ka duceystaan oo gacan qabtaan ma garanaysa marka maasan hooyo dul badan ayaa la yiraahdaa waxay tiri hooyo dul badan dabaylaha maxaa dadab laga galiyo dhistay hooy dugsoon dusha sare maxaad ka dadaacirkoo daryaaliya maxaad ku dahaadhay raar doc kastaba maxaad daroof kaga xidhaa dabadeed maxaad udub darafka sare ka dilaacsan ganaf dhig la doonataa maxaad moostay daad owdaa dalool maxaad diirtay madag umaag daabusho dabadeedna aad ka samaysay darin hooyo dul badan gabadh daahiriyo maxaad dihatay hanad diiwaanka galay doqonkiyo maxaad dambaska makacaha gelisaa dadaal dabadeedna uu dooroono iyo bari dirac noqdaa hooyo dul badan mar adoo da'aa dabka ugu jirtaa danyar iyo caruur hooyo dul badan muxuu bacadku dilay dambiil suuq adoo la fadhiya dariiq oo uba dayacan u daydeeyay quud hooyo dul badan darmo iyo inay dhabtu diirimaa dugsi tahay gabaad mid ducdaada weli dugsanaya show ma dareemayee maxaan kuu darsaday dib muxuu qalbigu xusuustaa wadaa duugoobi karin hooyo dul badan duca kororsigii dufan maris cagaha duugduugistii daashay markaad iska daalahayd damqashiga inay dubnax ka ahayd kama taagna dood aday dhibta ku diidaysa dib hadduu waqtigu u dawaafayo doraad maanta tahay fursad dahabiyoon shalay daayacan dib u sixi lahaa hooyo dul badan hooyo ducashadii dambarigu habkii dulku qaadistii daadahababintii naftadaal hurkii waxaad doonaysoo kuu haysadani hooyoy dartay isku diididii darajiya wanaag ila doonistii inay tahay dab kulul ii daran cuntadu dibna ku hubsadkii waa diin wax guda dunidaba dhaxool hooyoy dul badan hooyoy ducada kama daalayay dambi dhaaf allah kuu soo dalbaa durdurrada jannada allah ayuu degtaabay tir waa afarta eray ee gaaban ilaahay waxa ka bariyaa hooyooyinka Soomaaliyeed mar kale inuu sharfo khayr siiyo awlaadooda ilaahay ka dhigo kuwa baariina